saaxiibayaal ku soo dhowaada muuqaalkeenna maanta. Bilowga filimka waxaan baranaynaa Lee Son Yoon, kaasoo ahaa nin taajir dhexdhexaad ah, wuxuuna maamulo ka ahaa xarunta Boston Banki. Sidoo kalena wuxuu u shaqeeyaa la taliya maalgashi ahaan, mar walbana macaamiisha wuxuu kula taliyaa inay maalgashi sameeyaan si ay faa'iido badan u helaan. Dhinaca kalena Lee carruurtiisa wuxuu la lahaa xiriir aan fiicnayn, sababtoo ah waqtigiisa inta ugu badan wuxuu ku mashquulsanaa shaqadiisa iyo siduu lacag u heli lahaa. Sabab la mida midaana xaaskiisa wuxuu la lahaa xiriir xun, sababtoo ah wax waqtiga uma heli jirin ayada. Maalin maalmaha ka midana wuxuu go'aansaday in iskoolka uu u kaxeeyo wiilkiisa Min Jun iyo gabadhiisa Ha Yin, laakiin xaaskiisa ayaa asaga u timi, waxayna asaga u sheegtay in ayada ay hawsheeda u soo baajiso si ay ilmaheeda iskoolka u geyso. Laakiin Lee wuxuu ugu jawaabay in asagaba shaqadiisa uu u soo kansalay arrintan, marka looma baahna inaa ka welweshay arrinta. Intaa kadibna waxay bilaabeen inay aadaan iskoolka. Jidka dhexdiisana gabadhiisa waxay asaga u sheegtay in gaariga ay wax ka soo dhex urayaan. Si kastaba ha ahaatee, Lee wuu iska indhatiray hadalka gabadhiisa, wadistiisa ayuuna sii watay. Intaa dabadeedna wuxuu wicitaan ka helay mudanihiisa, waxaana asaga loo sheegay mid ka mid a xarumahooda in la xiray. Muddo kadibna marar badan ayaa la soo wacay asaga, isla markiina gabadhiisa waxay asaga ka codsatay in taleefankiisa uu qabto, laakiin wuxuu ugu jawaabay waxa dhacaya taleefankayga ma aha ee waa kaaga. wax yar kadibna asagoo wicitaanka tixraacaya wuxuu helay taleefankiisa, wuxuuna u malaynaya qofka asaga soo wacaya inuu yahay darawalkiisa, wuuna ka qabtay. isla markii uu taleefanka qabtana qofkii soo wacaya asaga wuxuu u sheegay in akhbaar muhiima uu u haayo oo ku saabsan gaarigiisa, laakiin isla markiiba taleefanka ayaa ka go'ay, wuxuuna u malaynaya in arrintan ay khiyaano tahay. wax yar kadibna Lee markuu taleefankiisa ka eegaya sawirka qoyskiisa, inantiisa wuxuu weydiiyey wax ku saabsan sawirkan, waxayna ugu jawaabtay sawirkan inuu ku jiro Facebookga hooyadeed, sidaa darteedna cid kasta ayaa meesha kala degi karta asaga. mar kalena taleefanka ayaa laga soo wacay, Leena wuu qabtay. intaa kadibna waxaa loo sheegay in kursiga hoostiisa bam loogu xiray asaga, haddii aad isku daydi inaad gaariga ka degtina waa dhiman doontaa adiga. si kastaba ha ahaatee, Lee wuxuu damiyey taleefanka, arrintaanna wuxuu u arkay inay kaftan tahay. filimkeennana wuxuu ku saabsan yahay maamulo bangi, kaasoo qof aan la garanayn uu soo wacayo, sidoo kalena uu u hanjabayo asagoo gaarigiisa bam ugu xiray. marka horena arrintan barankii ayuu u malaynayay, laakiin markuu xaqiiqada ogaaday si dhaqsiyala ayay wax walba isku bedeleen. maamuluhuna wuxuu isku dayay siduu u badbaadin lahaa carruurtiisa, sidoo kalena uu u heli lahaa lacagta madax furashada, booliiskana uu uga baxsan lahaa. marka loo fiiriyo wuxuu horay u sameeyana wuu istaahilaa arrintan. sidoo kalena hadda waxaan ogaanaynaa gaboodfalladii uu horay u geystay asaga. wax yar kadibna Lee wuxuu yimid meel kaalin shidaal ah si uu gaarigiisa shidaal ugu shubto. markuu isku dayo in gaariga uu ka soo degana, taleefanka ayaa laga soo wacay asaga, waxaana asiga la weydiiyey in gaarigiisa ay wax ka soo urayaan iyo in kale. Leena markuu arrintaa maqlay wuu naxay, sababtoo ah gabadhiisa ayaa sidaan ku tiri waqti ka hor. wacahana wuxuu kaloo asaga u sheegay meesha uu joogo, sababtoo ah locationkiisa ayuu jabsaday. sidoo kalena ninkaa wuxuu asaga ku yidhi, haddii aadan u malaynayn in bamkaa uu run yahay waad bixi kartaa adiga, laakiin markii aad arrintaa isku daydi, adiga iyo carruurtaadaba waxaan idinku dili doonaa ilbiriqsiyo gudahood. waqti kadibna nin ayaa u yimi asaga, sidoo kalena wuu ku qayliyey. Leena hadda wax shidaala kumuusan shuban gaarigiisa. si kastaba ha ahaatee, maadaama uusan awoodin in gaariga uu ka soo dego, ninkii ayuu lacag siiyey asaga, wuxuuna ka codsaday in gaarigiisa uu shidaal ugu shubo. intaa kadibna markuu weydiiyey burcadda waxa ay ka rabaan asaga, wacaha wuxuu ugu jawaabay inuu ka doonayo in akoonkiisa uu ugu shubo 3.5 milyan oo dollar, sidoo kalena waa in ay siisaa 1 milyan oo kaasha. intaa dabadeedna markay carruurtiisa doonayeen inay gaariga ka degaan si ay iskoolkooda u aadaan, wuu joojiyey ayaga. carruurtuna ma aysan fahansanayn sababta uu aabbahood iskoolka uga celinayo. si kastaba ha ahaatee, markii xigtay afduubaha ayaa soo wacay, wuxuuna asaga ku qasbay in arrintan uu la wadaago carruurtiisa. intaa kadibna Lee carruurtiisa wuxuu ku yidhi, nin waalan baa bamba noogu xiray gaariga. intaa dabadeedna waxaa asaga soo wacay burcaddii, waxayna u sheegeen hadduusan la shaqaynin in gaarigiisa ay qarxin doonaan, sidoo kalena arrintan lama wadaagi karti booliiska. muddo kadibna nin kale oo isku shaqo ahaayeen ayaa soo wacay asaga, ninkaana aad buu u argagaxsanaa, wuxuuna asaga u sheegay in gaarigiisa bamba loogu xiray, sidoo kale qofka isoo wacaayana wuxuu iga dalbanayaa lacag badan. sidaa darteedna Lee hadda wuxuu la kulmay ninkii ay shaqo wadaagta ahaayeen, kaasoo ay gaariga la saaran tahay xaaskiisa. haddana xaaska ninkaa waxay ku adkaysanaysay inuu u ogolaado inay aado xafiiskeeda. dhinaca kalena nin ayaa hor yimi Lee, aad buuna ugu qayliyey asaga, sababtoo ah waxay xayireen waddada. intaa kadibna Lee wuxuu raaligeliyey ninka, isla markiina wuxuu raadsaday meel baakina uu gaarigiisa dhigto. dhinaca kalena xaaska saaxiibkii weli waxay ku adkaysanaysay inay aado shaqadeeda. markay asaga ku qancisay inay gaariga ka degtana, Lee isla markiiba wuxuu meesha kala cararay
gaarigiisa laakiin si lama filaana markay naagtu gaariga uga soo baxday bamkii gaariga ku xirnaa ayaa qarxay halka ayayna ku dhinteen labadooda haddana qaraxan carruurtiisu aad bay uga baqeen sidoo kalena qaraxa wuxuu dhaawac ka soo gaaray wiilkiisa Min Jun arrintaana waxay sababtay in si xun uu u dhiig baxo laakiin burcadda ayaa isla markiiba soo wacay asaga waxayna ku amreen inuu bixiyo lacagta arrinteennana inay dhabtaa waxaa ku ogaanaysaa dhimashada saaxiibka iyo dhaawaca wiilkaaga liina hadda wuxuu ogolaaday inuu bixiyo lacagta qofkii soo wacayana wuxuu u sheegay inuu u ogolaado inuu aado bangiga si uu lacagta meesha uga soo qaado si kastaba ha ahaatee ninkii wuxuu asaga u sheegay inuusan asagu aadi karin bangiga sababtoo ah haddii aad kursigaaga ka kacdi waxaa u dhiman doontaa sida saaxiibka oo kale hadalka markuu maqlay liina wuxuu asaga ka baryay inuu u baahan yahay in wiilkiisa uu isbitaal geeyo marka hore laakiin ninkii ayaa asaga u sheegay inaysan waxba ka qusaynin arrinta intaa dabadeedna wuxuu ka labalabeeyey inuu bixiyo lacagta madax furashada sidoo kalena hadda waxaa asaga lagu amray inuu bixiyo lacagtii saaxiibkii dhintay laga rabay maqlidda arrintaana ninkii wuxuu u sheegay in lacag intaa la eg aysan ku jirin akoonkiisa laakiin ninka burcadda wuxuu ka warqabay haraaga akoonka Lee intaa kadibna wuxuu ku amray inuu waco xaaskiisa uuna ku amro inay u keento lacag caddaana sidoo kalena wuxuu ku amray inuu la hadlo macaamiishiisa maalqabeennada ah oo uu been u sheego si uu uga helo lacagta hartay marka xigtana Lee wuxuu wacay xibin ka mid ah shaqaalaha bangiga wuxuuna ku amray inuu u waco macaamiisha VIP-ga ah sidoo kalena uu ku qanciyo in loo haayo nidaam cusub oo maalgashiya kaasoo ay faa'iido badan ka heli karaan si kastaba ha ahaatee lacagtii macaamiisha laga helay ma gaarsiisnayn lacagtii ay ka doonayeen burcadda sidaa darteedna si shakhsiya ayuu u wacay mid ka mid a macaamiisha wuxuuna ku booriyey inuu maal gashto mashruucan asagoo u sheegaya inuu ka helayo faa'iido wanaagsan laakiin macmiilkii ayaa iska diiday in lacagta uu ku wareejiyo xaaskiisa asagoo marka hore u sheegaya inay la hadal siiso ninkeeda goobta uu qaraxa ka dhacayna boolisku hadda waxay baarayeen waxa sababay qaraxan markay CCTV-ga eegeenna waxay arkeen Lee oo la hadlaya ninka intuusan dhiman ka hor intaa kadibna waxay ogaadeen Lee inuu wax ka ogaa qaraxan intuusan dhicin ka hor dhinaca kalena siduu faray Lee xaaskiisa waxay booqatay bangiga iyadoo ay la socoto saaxiibadeed meeshaana waxay ka soo qaaday lacagtii xaaskiisa saaxiibadeedna hadda waxay u soo dhawaatay asaga sidoo kalena waxay isku dayday inay la hadasho Lee laakiin wuu iska ceeriyey gaariga ayuuna ka kaxaystay ayada Leena hadda xaaskiisa wuxuu ka codsaday in lacagta ay dhigto bokiska boostada hortiisa si kastaba ha ahaatee waxay asaga u sheegtay in nin dheer uu u soo dhawaaday uuna eegaayo ayada asagoo naxsanna Lee xaaskiisa wuxuu u sheegay in meesha ay uga soo tagto si dhaqsiya leh laakiin ninka markuu meesha yimi isla markiiba waxaa gacanta ku dhigay booliska ayagoo xogta ka helay xaaska Lee dhinaca kalena ninkii wuxuu soo wacay asaga Leena wuxuu ku andacooday in qaladka oo dhan uu asaga sameeyay wax kastana waxay ku dhaceen qaladkayga intaa kadibna ninkii hadda wuxuu bilaabay inuu qarxiyo bamka halka Lee iyo carruurtiisana ay indhaha isku xireen sababtoo ah waxay aamineen inay dhimanayaan laakiin bam kale ayaa ka qarxay supermarketka hortiisa halkaas oo ay taagneyd xaaskiisa wax kasta oo meesha ka dhacayna waxay ahaayeen wax cabsi leh nasiib wanaagna wax yar kadib waxaa asaga soo wacday xaaskiisa si ay u ogaato inuu fiican yahay markii xigtana waxaa asaga soo wacay ninkii mar kalena lacag ayuu ka dalbaday asaga sidoo kalena markaan wuxuu sheegtay lacag badan dhinaca kalena boolisku waxay ogaadeen in gaariga Lee uu yaalay meesha uu ka dhacay qaraxa labaad askar ayaana hadda loo diray si ay u soo qabtaan asaga meel kalena Lee wuxuu ku qayliyay shaqaalihiisa sababtoo ah ma uusan u keenin lacag ku filan si kastaba ha ahaatee hadda wuxuu go'aansaday in lacag kasta uu haysto uu bixiyo asagoo rajaynaya in burcaddu ay u sii dayn doonaan carruurtiisa intaa kadibna ninkii shaqaalaha ahaa ayaa asaga u sheegay in dadku ay diideen inay lacagaha bixiyaan ilaa ay lacagtii hore faa'iidadeeda helaan dhinaca kalena Min Jun aad buu u dhiig baxay haddana Lee waxaa u yimi booliska waxayna ku amreen inuu gaariga ka soo dego laakiin wuu iska dhegatiray hadalkooda haddana wuxuu bilaabay in cunugiisa uu isbitaal u raadiyo booliskuna isla markiiba waxay bilaabeen inay helikobtar ku ceyrsadaan asaga in muddo ay daba socdeen kadibna boolisku waxay hareereeyeen asaga haddana wax fursada ma haysto uu halkaan uga baxsan karo isla markiina boolisku Lee waxay ku amreen inuu ka soo baxo gaariga si kastaba ha ahaatee ninkii burcadda ahaa ayaa asaga ku qasbay in booliska uu u sheegay in gaarigan uu bam ku xiran yahay hadduu dhaqaaq sameeyana uu bamka qarxaayo si bamkan loo baarana hadda kooxda hawshan ku shaqada leh ayaa meesha yimaadeen intaa kadibna sargaalku wuxuu amar ku bixiyey in la toogto Lee markii gaariga laga soo saaro carruurtiisa dhinaca kalena Lee kooxda wuxuu ka codsaday markay cunugiisa bannaanka u saaraan inay isbitaal u geeyaan sidoo kalena nin ayaga ka mida wuxuu u sheegay inuusan halkan ka bixi karin wuxuuna kaloo ninkaa tusay taleefankiisa wax yar kadibna ninkii booliska ahaa wuxuu asaga siiyey qalab kaasoo uu kula hadli karo carruurtiisa intaa dabadeedna wuxuu isku dayay inuu la xiriiro qofkii la hadlaaya asaga laakiin looma jawaabin hadda intaa kadibna qoraal ayaa loogu soo diray taleefankiisa kaasoo loogu sheegayo in qalabka la siiyey uu tuuro
jiro laakiin wax doorasho ah oo kale hadda maadaama uusan haysan wuxuu ku qasbanaa inuu qaato amarka sidoo kalena wuxuu fahmay in qofka taleefanka kula hadlaayo uu meel dhow ka daawanayo asaga liina mar kale ayaa la soo wacay asaga waxaana la weydiiyey inuu dib u xasuusto falkii uu sameeyey 6 sano ka hor asagoo qaladka ka galay mid ka mid ah macaamiisha bangiga ka hor intaanan wax kale loo sheeginna booliska ayaa jaamgareeyeen anteenada taleefankiina meesha ayuu ku go'ay dhinaca kalena kooxda samata bixinta markay meesha yimaadeen si ay baaritaan u sameeyaan waxay ogaadeen bamku inuu ku xiran yahay kursiga hore oo kaliya qaybta dambana uusan wax saameyn ku lahayn sidaa darteedna marka hore meesha waxay ka soo saareen carruurta wiilka yarna maadaama uu xaalad halis ku jiray waxa asaga loola cararay isbitaalka si kastaba ha ahaatee meel fog ayay gabadha yar ka aragtay nin doonaya inuu toogto aabaheed isla markiina gabadha yar waxay diiday inay ka soo degto gaariga waxayna kursiga hore la fuushay aabaheed marka xigtana waxaan ogaanaynaa ninka wax qarxinaya in magaciisa la yiraahdo Jimu wuxuuna booliska iskaga dhigayay inuu yahay Lee walaalkiis isla markiina waxay asaga ku amreen inuu Lee u tago sidoo kalena uu wax ka dhaadhiciyo sababtoo ah waxay aaminsan yihiin in gabadha yar uu gaariga ka soo dejin karo asaga intaa kadibna wuxuu u tagay Lee wuxuuna dib u xasuusiyay 6 sano ka hor wuxuu ku sameeyay asaga Leena hadda wuxuu fahmay in ninkan uu lacag badan maal gashtay kadibna uu qasaaray lacagta haddana uu doonayo inuu ka aarguto asaga intaa kadibna Lee John wuxuu ka bariyay in gabadhiisa uu u badbaadiyo taa beddelkeedana waxaan ku siin doonaa lacagtayda oo dhan maqlidda hadalkaana John wuxuu aqbalay arrintan si ku meel gaarana wuxuu u damiyay bamka arrintaana waxay sahashay in gabadha yar laga soo dejiyo gaariga intaa kadibna mar kale ayuu dib u shiday bamka 18 daqiiqo oo kaliya ayaana hadda ka harsan in bamkan uu qarxo intaa dabadeedna ninka meesha ayuu ka soo tagay asagoo gabadha yar wata dhinaca kalena xaaskiisa waxay ogaatay in ninkan uusan ahayn Lee walaalkiis isla markiina waxay wacday booliska si ay arrintan ula wadaagto si kastaba ha ahaatee way soo daahday ayada sababtoo ah John waqti ka hor ayuu meeshan ka tagay markuu gabadha ka haystay dhinaca kalena Lee wuxuu bilaabay in gaariga uu kaxeeyo si uu lacagta u siiyo John isla waqtigaana wuxuu wacay madaxdiisa wuxuuna ka bariyay inuu lacag siiyo laakiin mudanihiisa ayaa asaga u sheegay inuu lacagta sii karin asaga haddii aan bixiyana dacwad ayaa la iga gudbin doonaa taasoo ah inaan khiyaanay bangiga haddana asagoo quustay wuxuu wacay xaaskiisa wuxuuna weydiistay inay u soo dirto lacagta ku jirta akoonkeeda dhinaca kalena John wuxuu soo wacay Lee wuxuuna u sheegay inuu ugu yimaado dekada si uu u xasuusiyo ficiladii uu horay ugu sameeyay asaga Leena 6 sano ka hor wuxuu shaqaale ka ahaa bangigan xilligaana bangigooda wuxuu isticmaalayay farsamooyin suuqgeyn oo been abuura si ay maalgashatada uga dhaadhiciyaan inay iibsadaan sheerarka kiimikada Janso sidoo kalena waxay u sheegeen inaysan arrinta khatar lahayn si kastaba ha ahaatee suuqxumo awgeed ayaa sababtay in arrinta ay maalgashatadu lacag badan ku khasaaraan dadka lacagtaas khasaarayna waxaa ku jiray John xaaskiisa Ion intaa kadibna Lee wuxuu burburiyay cadaymaha arrinta madaxdiisana mar walba waxay asaga ku dalaacsiinayeen qiyaanaynta dadka laakiin Ion nolosheeda oo dhan waxay ku xirneyd warshadaas sababtoo ah lacagteedii oo dhan waxay ku maalgelisay mashruucan sidaa darteedna goobta baakinka Lee waxay uga barisay inuu siiyo talo taasoo ay dib ugu soo ceshan karto lacagteeda si kastaba ha ahaatee asagoo aan hadalkeeda danaynayn ayuu goobta isaga tagay maadaama ay asaga indha tirtay damaca lacagta muuqaalka xigana Jane waxaa soo wacday hooyadii waxayna u sheegtay in akoonkeeda lagu shubay lacag badan wax yar kadibna waxaa meesha yimi Lee wuxuuna ogaaday in gabadhiisa ay gaariga ku dhex jirto intaa kadibna wuxuu raali geliyay ayada wuxuuna u sheegay in noloshiisii hore uu qaladyo badan soo galay haddana uu diyaar u yahay inuu saxo qaladka dhinaca kalena John ayaa meesha yimi wuxuuna la fariistay kursiga hore Leena wuxuu raali geliyay asaga sidoo kalena hadda wuxuu weydiistay inuu siiyo fursad kale wax walbana waan sixi doonaa aniga intaa dabadeedna John wuxuu asaga u sheegay in wax walba uu waayay maalintii xaaskiisa iyo cunugiisii caloosha ay ku sida ay ka dhinteen intaa kadibna Lee wuxuu ku amray inuu gaariga u wado dhanka biyaha si uusan ugu qarxin gabadha yar agteeda asagoo aan wax doorasho ah oo kala lahayn Lee hadda wuxuu gaariga u kaxeeyay meesha ka hor intuusan gaariga qarxinna wuxuu sabaynayo webiga laakiin wuxuu ku guuleystay in qaraxa uu ka soo saaro meesha sidoo kalena boolisku isla waqtiga waxay badbaadiyeen asaga wuxuuna kaloo hadda isku dayay inuu badbaadiyo nolosha John laakiin kumuusan guuleysan arrinta dhacdooyinkan oo dhanna hadda waxay sababeen inay isbedesho dabeecadii Lee wuxuuna go'aansaday in wax walba uu ku cadeeyo bangigiisa inkastoo uu faa'iido badan ku qabay arrintan sidoo kalena inkastoo cadaymaha bangigan uu horay u burburiyay asaga hadda wuxuu rabay inuu ku cadeeyo dembigooda muuqaalka ugu dambeeya ee filimkeenana waxaan aragnaa Lee oo ay soo waceen madaxdiisa sidoo kalena ay u hanjabayaan laakiin Lee wuxuu taleefanka ku damiyay ayaga sababtoo ah mar hore ayuu go'aan ka qaatay arrintan wuxuuna rabay in dembigooda uu ku cadeeyo ayaga filimkeenina meesha ayuu ku soo dhamaaday haddii aad nala soo gaartay dhamaadka muuqaalkan fadlan muuqaalkeena like saar sidoo kalena channelkeena ku soo biiro subscribe
subscribe dheh. Waa ku mahadsan tahay la joogistaada.